درسيgu wuxuu ku saabsiisay maxaa iimaanka suga maxaa taxqiijiya maxaa ka dhabeeya sidee baynu iimaankeena u xoogeyn karnaa sidee baynu uga bixi karnaa inaynan shaki la inugu abuuri karin sidee baynu qantaradaasi u weydaaran karnaa sidee baynu ilaahay rumayntaynu rumaynaa ama rasuulka rumayntaynu rumaysanay ama quraanka saynu rumaysanay uu u noqon karaa xaddu rusukh inaynu gaadhno waxa ugu horeeya culimadu yiraahdaan barashada ilaahay baratid iyo sifaadkiisa ilaahay quraanka wuxuu leeyahay inma yakhsha allaha min ibadihi alulama ilaahay waxa ka cabsado kaliya adoomadiisa cilmiga laba ilaahay markaad ilaahay si dhaba u barato asmaadiisa baratid oo ka cabsatid oo jeclaatid oo tala saaratid oo qadaaga iyo wuxuu xukumo raali ku ahaatid yani markaad rumaysay ilaahay inuu caliimiyay oo khabiiriyay oo xakiimiyay oo raxmaan yahay oo raxiim yahay oo nolosha tan oo dhan isagu maamulo waxay noqonaysaa inaad isaga isu dhiibto si dhaba u rumaysid idan cilmiga waxtara waa cilmiga rabbiga ku bara ee aad baratid inuu kali yahay ee keensada inaad isaga weheshato inaad ka xishooto inaad u caabudo kaanaka taraa sidii aad arkaysa inaad u caabudo saa awgeed ayaa ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa yarfac illaahu alladhiina aamanuu minkum walladhiina uutul cilma darajaat ilaahay wuxuu kor yeelaa kuwa iimaanka laga helay idinka mid iyo kuwa cilmiga la siiyey waxa ilaahay ku tilmaamayaa markhaatigiisa iyo markhaatiga malaa'igta iyo ulul cilmigu israaciya ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa ilaahay ina leeyahay fa'lam annahu laa ilaaha illa allah baro ilaahay inuu kali yahay cilmigaasi qofka la siiyo waa qof khayr la siiyo nabigu wuxuu leeyahay man yurid allahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofka ilaahay khayr la doono diintiisu baraa idan qofku inuu barto diintiisa iyo wanaageeda iyo maxaasinteeda sharcigeeda iyo qurux badnidiisa ahkaamteeda iyo wanaagsanaanteeda akhlaaqiyadkeeda iyo aadaabka fiican ay leedahay markuu si fiican u barto qofku wuxuu leeyahay itminaan alqalb ilaahina wuxuu leeyahay walakin allaha habbaba ilaykum aliimaana wazayyanahu fi qulubikum waxyaabaha iimaanka xaqiijiya waxa kamid ah quraanku in badan tilmaamayo